daawadayaal halkani waa suuqa weyn ee caasimadda Puntland ee Garowe shacab weynaha ku dhaqan caasimadda gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn ee ka ganacsada suuqan waxa ay ka cabanayaan oo ay la daala dhacayaan sarifka doolarka oo aad u kacay ciishadii aad u qaaliyowday baan dhageysano dareenka shacab weynaha waxa weeye doolarku wuxuu marayaa konton shicibkii waa baktiyeen danyartii way baktiday wax ma galato muxuu ahaayey ganacsigii wuu naga baktiyey cid mataqaanaa intaas oo jeer baanu dacwoonnay oo dawladda u dacwoonnay oo baarlamaanka u dacwoonnay maantii u dambaysay baarlamaanku waa nacaayeen cid wax noo qabatana ma jirto ganacsigiina wuu naga baktiyey waxaannu doonaynaa haddii dawladii jirto in wax naloo qabto dadka maaragtay wax loo qabto dadka maaragtay muxuu ahaayey silica iyo saxriirka laga dhaafo baannu doonaynaa intaasoo jeer baannu ku hadallay saxaafadda waxaannu leenahay markaannu idinla hadallo hadalkayga ma soo daysaan waad jartaaniin haddaa idinku jartaanna idinkaa dembiile ah haddii dawladdu aad u gayseenoo dawladdu ayan mataqaana wax ka qabanna dawladdaa dembiile ah shicibkii waannu nahay ganacsigaygii waa baktiyey cid wax noo qabataana ma jirto bismillaahi raxmaani raxiim horta waxa weeye dadku dawladda iyo shacabku waxa weeye ma kala maarmaan dadka dawladdaana waxaa la rabaa inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan una turaan waddanka waxa weeye baarlamaanka waxaa loo doortay ama loo dhaariyey inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan dawladda iyo dadkana u dhaxeeyaan dadka shacabkaa dhib baa haysta doolarkii waa kacay ninkii miskiinee neef adhiya suuqa keensadaa maanta beerkabaa uma gooyo neefkiisa uu gataa ama kiish raashina uma gooyo dadku waa xoolo dhaqato waa dad masaakiina waa dad ganacsata oo tabaryar waddanku dhaqaale ma leh shirkada ma leh waxa weeye shidaal inooma soo baxa innaga shirkado laga shaqeeyaa ma jirto dadku waa dad xamaasho iyo dad xoolo dhaqata dadka xoolo dhaqatada waxay gataan xoolahooda dadka xamaashayna wax ka sii iibsadaan kii maanta xoolaha dhaqanayayna waa caqday oo ninkii maanta laba neef keensadaa laba haaf reerkiisii ku celin mayo ninkii wax gadanayayna wax ka gataba ma haysto aanna xoolaha nool baynu inagu wax ku iibsanayna xoolaheenna haddaysan lacag jarayn oo lacagteennii qiimo dhacday dee dalkeennii dhaqaale yeelan mayo marka dawladda waxaan ka codsanaynaa doolarkan maraya 4 milyan iyo 200 wax loo adkaysan kara maaha wax dadka shacabka xamili karana maaha waxaanu dawladda ka codsanayna oo baarlamaanka ka codsanayna oo wasiirada ka codsanayna oo madaxweynaha ka codsanayna dalka iyo dadka hoos inay u eegaan dalkan iyo dadkan iyagaa u dhaartay mas'uuliyadooda iyagaa qaaday ilaahay waa kala xisaabtamaya qofkana waxaa la rabaa mas'uuliyad hadduu qaado wixii uu qof walbaaba waa mas'uul wixii la raaciyay uu mas'uulka yahay waa inay mas'uuliyadda qaadaan waa inay dadka shacabka u turaan waa inay doolarka hoos u eegaan waxa weeye doolarku maalintii xukuumadda Cabdiraxmaan Faroole doolarku wuxuu marayay 2 milyan iyo 400 xukuumaddii ka dambeysayna doolarka wax kama qaban tanna waxba kama qaban waaba sii socdaaba meeshaan islayn dawladda cusub markay dhalatay doolarka waxba laga qabanaya doolarkii 4 milyan iyo 400 buu maraya gacantii dambe tii horena 4 milyan iyo 200 buu maraya dad iyagu danaystayaal ku shaqaysanaya maalintay rabaan ridaya maalintay rabaan kor u qaaday marka dadka waxaa la rabaa maalin walbana dadku inuu hadlo shacabka iska qayliya maaha waxaa la rabaa dawladdu inay dadka u dhagawanaanaato dhagaysato warkooda dawladdu waxay dawlad ku noqotaa shacabkeeda inay dhagaysato dawladdu shacabka ha dhagaysato hoosna ha u eegeen maaha ninka mas'uulka ah inuu isagu mushaharkiisa iyo noloshiisa yar iyo xoogaagiisa markay isu saaran tahay oo inta dadka ku ilaawo laakiin waxa la rabaa isagoo intiisa isu saaran tahay anagaaba u ogolo waa mas'uuliyaanteedii inay dadka hoos u eegaan mas'uuliyiintu oo iyaga toodo isu saaran kaliya aysan u arkin dadkii waa baktiyay dadka shacabka ay hoos u fiiriyaan intaasaan codsanaynaa baarlamaanka waxaan weydiinayaa doolarka wareersan cidda looga cabanayo iyo sixir goyntiisa yaa looga cabanayaa oo wax ka qabanaya annagu waxa weeye doolarka waan ku wareersanahay dadkii waa baktiyeen dadkii danyartaha way baktiyeen suuqa maalin walba looga qaaraamaa wax looga ururiyaa dadka inta nool oo wax cunaysaa waa inta suuqa joogto ama dayn ha cunto dad leeyahay ama xoolo dadow ha cuneen
waxa weeyaan doolarkii waa lagu wareeray halkii doolar waxba ku goymaya waad aragtay oo kaash baan gadaynaa xoolaha xaaladda corona sidii saameysay xaaladda corona dhulka nala simay oo ganacsigii horta isagaa baabi'iyay dadkii meel kale ku soo gali jireen corona baabi'iyay adduunkii meel walba waa xiran tahay marka doolarkana waa lala wareersanay ummadda waxay doolarkan bay la jahwareersan yaa doolarkan marka bal waxaan weydiinayaa dowladaha dawladda doolarkan waxaa fariisinaya wax nooga qabanaya yaa wax nooga qabanaya bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay qoliyo suuqleeya oo suuqa ka ganacsada wallaahi ganacsiga suuqa xaaladda hadda ku jirta waa kii hoose bakti inay ka dhacdaan ka baqaynaa oo biilashii cunadii la cuni lahaa quduldurriga ilaahay baa afka kala jeexay oo qadaray laakiin aad baan waxaan uga baqsannahay waxaan guryihii la aadnay ciyaal kula noqono iska daafii iyaan la baxno iyo koronto iyo biyo iyo xaalado noocaasa inaan la baxno iska daaya khatar waxaan ugu jirnaa in ciyaaladii dabkii loo shidaya ay nagu daadaabaan sababahaasna waxaan u sababeynaynaa doolarka cirka aaday oo inay wax ku darmadaan aan wax ka dhicin dowladdiina aysan wax gadaal eegisa aysan ku samaynayn dee sababta waxaan u aragnaa shacabka dan kama lihiin dowladda xaaladeeda sababta waxay tahay shacabku dowladdu hoos jooga ilaahay hoos jooga laakiin dowladdu hoos jooga mas'uuliyad bay u qaaday way u dhaaratay kitaab bay u madha waxay ugu dhaaratana wax shaqo ay ugu haysa ma jirto iyadoon baa iska damaashaadayso ma howlaheeda wadata marka waxaan dhihi lahayn dowladdu way dhaaratay kitaab bay shacabka u madhay waxa dhibaya shacabka oo xaaladda shacabka ku jiro hoos ha u fiiriso oo dib ha u eegto xaaladaha shacabka ku jiro annagu haddii aan xaaladda ku sii jirno canshuur ma bixin doono ciyaaladii iskuullada waa la ka soo saari doonaa meheradaha aan degannahay way isxiri doonaan xaaladda hadda aan ku jirno hadday ku sii socoto sidaas oo aysan dowladdu wax dib eegida u samayn marka dowladda waxaan u soo baaqa u jeedinaynaa shacabka ay u dhaaratay hoos ha u eegto cashuurna wax noogama baaqato maalin walba cashuur baa nala ka guraya maalin walba cashuur baa nala weydiiyaa oo nalaga qaada maxaan cashuurta ku bixinaa annagii baaba waxa weeyaan mayn isku jirne cashuurta waxa weeye haba qaateen annagaa diyaar ula sababta ku tahay waa ognahay halkan waxa ka soo baxa waxa weeye ma haystaan dowladdan dowlad tabar weyn lama meelaha wax ka soo galaana waa dee annaga iyo wax la mida marka waxaa la rabaa inay iyaga ruuxoodu wixii qayb soo celiyaan xataa dhahaan dadkii ha loo celiyo masaakiinta waxaa ka soo qaataan wuxuuna ha loo celiyo marka waxaan codsan lahayn dowladda ka codsanaynaa shacabka hoos u fiiriya sida aad u jeedaan suuqyada garowe ayaa qarka u saaran inay xirmaan miidiya garowe